waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya maanta ka furmay shir uu agaasimkiisa leeyahay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxda mucaaradka oo gaaraya ilaa 81 xisbi oo ka mid yihiin OLF oo ka dagaalama jirtay kililka Oromada iyo jabhadda ONLF oo ka dagaalama jirtay deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya. Ajadaha shirkan ayaa sidii dhinacyada mucaaradka iyo dawladda ay isugu afgaran lahaayeen doorashada soo socota ee la filayo inay dhacdo sanadda 2020. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo kulanka soo qaban qaabiyay ayaa sheegay in kulanka ay ugu hadli doonaan sidii doorasho cadaalad ah, xor iyo nabadgelyo ah ay ugu dhici lahayd dalkaasi Itoobiya marka la gaaro sanadda 2020. Shirka oo hadda ka socda magaalada Addis Ababa ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro qodobo doorasho oo wax ku ool ah oo ay isku afkartaan dhinacyada dawladda iyo mucaaradka. Abiy Ahmed ayaa mucaaradka kala hadlaya sidii loo sii xoojin lahaa isbedelada horumarineed ee dalkaasi isaga ka wada. Isbahaysiga talada haya ee EPRDF oo Abiy Ahmed uu ka tirsan yahay isla markaana xulafo dowladaha wadamada reer galbeedka ayaa haysta awoodda inta badan kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi Itoobiya. Abiy ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu Birtukan Mideksan u magacaabay inay noqoto gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee la qorsheynayo inay dhacdo sanadda 2020. Birtukan ayaa ka mid ahaa 10 xubno mucaarad ah oo horey loo xiray kadib rabshadihii ka dhashay doorashadii 2005 markaas oo isbahaysiga mucaaradka ahi ay la loolameen xisbahaysiga EPRDF kadibna ay ka hor yimaadeen guushii xisbiga. Cabsi Xasan Soomaali Cable, Nairobi.